Ranbir Kapoor filimka hogaamiyaha uu ka yahay yaashana uu la wadaaga saaxiibayaal lagu magacaabo Ramayana ayaa war xasaasi ah oo ka soo baxa filimkan saaxiibayaal sida hadda warbixinada aan ku helayno xafladda weyn ee goordhow la qaban doono ee lagu magacaabo saaxiibayaal Wafis ayaa lagu soo bandhigi doonaa ayaa la leeyahay Farasta Luuga ama kaartada ugu horeysa filimka lagu magacaabo Ramayana qorshaha hadda wuxuu uu yahay saaxiibayaal in kaartada ugu horeysa filimka Ramayana lagu soo bandhigo ninka lagu magacaabo Ranbir Kapoor kaliya ayaa wajigiisa laga soo bandhigi doonaa iyo steelkiisa filimka Ramayana oo ku matalayo filimkan Ramayana waxaa directorkeena Nitish Tiwari yaash waa uu ku jira oo laadar ayuu ka yahay say balaafa atirshada koowaad filimka waayo waxay ku matalaysiitaa halka Rocken Star yaashna uu ku matali doono ninka lagu magacaabo Rafan saaxiibayaal Kunal Kumar asagana waa uu ku jira oo ka soo horjeedka ninka lagu magacaabo yaash iyo Ranbir Kapoor waa toora kale oo powerful filimka ku sidaa darteed marka qorshaha filimkan si macaan ayuu u socdaa qaybtii koowaad waa la soo afjaray qaybta labaad hadda shaqadiisa way bilaabatay Mumbai ayay ka bilaabatay hadda marka wararka soo baxay waxay sheegayaan xafladda weyn ee Wafis oo bahalka oo daahfuri doona ninka lagu magacaabo Shayruqan in lagu soo bandhigi doono Farasta Luuga ama kaartada ugu horeysa filimka lagu magacaabo Ramayana oo Ranbir Kapoor hogaamiye oo ka yahay marka Ranbir Kapoor Farasta Luugiisa ama kaartadiisa hore ama aragtida koowaad ee Ranbir Kapoor ayaa lagu soo bandhigi doonaa filimkaas xafladaas lagu magacaabo Wafis saaxiibayaal